anigu waxaan qabaa haddii ay Itoobiya danaynayso inay dekada saylac maal gashato in qaranku aqbalo oo waajib ku tahay inuu aqbalana sidoo ra'iisul wasaaruhu u dhigay waxay rabaan dhul ay leeyihiin oo dekad leh Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu hadalkiisa raaciyay cabsida xooggan ee ka haysata mustaqbalka dalkiisa ee badla'aanta helitaanka baddu waxa ay ku xiran tahay jiritaankeena ayuu yiri marka xeeb ay leeyihiin ayay raadinayaan weligeed saylac baa jirtaan maqlinay haddayna ka faa'iideysanay saylac maxay noo taraysaa ma qiyaamo waxay noo taraysaa berbera waa tii laga siiyay 15% stake laga siiyay qayb laga siiyay leeydi qaybtaas aad leedihiin wixii dekada ku saabsan laakiin dhulka Soomaali baa leh lacagtii way bixin waayeen dabadeedna waa lagala noqday Hargeysa kala noqotay arintaas marka waxay raadinayaan wax weyn dhul hay leeyihiin jid hay u maraan iyo xeeb hay yeeshaan wax weeyaan damac halkaas weey saylacna Somaliland gudaheega ku taala ana oo hadlayo constituency-ga la iga soo doortay ee tiri dadkaaga halka gobolka ka soo jeeday batay waan waafaqsanahay in dekadaasi ma aragtay khudbadiisa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ku faahfaahiyay taariikhan in dalkiisu uu mar hore gacanta ku hayn jiray xeebaha badda cas laakiin uu waqtigu ka fogeeyay xilligan ay tahay in laga shaqeeyo sidii mar kale loogu dhawaan lahaa badda cas Aksumite Kingdom mibalo waxaad ogtiin in boqortooyada Aksum ay ka talin jirtay inta ugu badan ee badda cas buugayga madamar markii aan ku qorayay saameynta ay leedahay u dhawaanshaha ama ka fogaanshaha badda cas waa wax taariikh ku salaysan sidee ayaan mar kale ugu dhawaanaa xeebaha waa weydiinta ay tahay in la iska wareysto inagu waxaan nahay dad sharci leh Abiy Ahmed laba jeer buu isweydiiyay miyaan xoog ku rabaa miyuu si sharci ku rabaa xaajigan Abiy Ahmed wuxuu yiri ama xoog ama xeelad ayaan ku qaadananaa marka waxa weeyaan waxaan maalgashi maaha oo hadday leeyihiin Itoobiya doonaysa inay maal gashato Itoobiya lacag ma haysato maanta dhibta ugu weyn ee Itoobiya haysata waa lacagtan adag ma haystaan waxay tagi doonaan baananka adduunka tagi doonaan baanankaasi ka soo amaahan doonaan hadday iyagu amaahanayaan inaguna ka amaahan karnaa marka haddii ay doonayaan dekad hay isticmaali karaan oo wuxuu uga soo dago wuxuugana ay ka dhoofsadaan oo sharciga adduunyada ku shaqeeya intaa ka hor imanaysa diidaysa ma jirto waxay rabaan inay meesheena qabsadaan kol hadday meel ka qabsadaanna inteena kalena way ku dhamaatay